Isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka G.Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse Gele ayaa waxa uu soo kormeeray halka uu marayo dhismaha xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Jufagaliile oo ka tirsan gobolka G.Awdal oo maraya meel fiican. Xaruntani hooyada iyo dhallaanka ee MCH-ka loo yaqaano ayaa waxa ay wax weyn ka tari doontaa baahiyaha caafimaad ee halkaasi ka jiray. Xaruntani caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ayaa waxa dhismaheeda hirgeliyay qurbajoog iyo qolqoljoog ka soo jeeda deegaankaasi. Ugu horeyn odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaankaasi ayaa waxa uga mahad celiyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta MCH-kani waxaana yiraahdeen sida tan waxaan mahad u naqanaa horta dadkii naga caawiyay anagoo baahida iyadu ay aad u badnayd in badan ku tawaawaanay dawlad iyo dadba sidii wax loogu qaban lahaa annaguna tamartayadu ay gaarsiin weyday inaan wax qabsano dadka iyaga na soo beer la xawsaday ee baahidayadii arkay horta ilaahay ka jisaaysiyo wax khayr qaba oo ka wanaagsan ilaahay ugu biriyo dhibaatada meesha ka jirtay horta meeshu dhibaatadeedu aad bay u badnayd maanta oo kale waqtiyo ay ka sii dafayd baa jirto dee maanta baabuur halkan yaacasa ayaaban aragnaa waxaa jirasay waqtiyo dumar badani u dhinteen dhiigla kolkay umureen dhiig bax يا قارن اسكو سيدين تيمبا يا إمي هالكنا وحباب اللي يردو وقول له كل كي يضمر كل ما أما صدح فوشان وجاري نقول تجي جادي وحنا رايد باتو بيمشي صار صيحي يا أدي نوال وقوم حد نقنا قد ذلك أنا مكاس الحمد لله بان لنا دباتو إلهي أنا قصو فرطو إلا كوي توبيه كجرا naga sii dareena way jiraan islaama wada dhakhtar cid malaha oo iyagu baabuur helay ya waxaan ugu mahadnayaa walaalaha iyaga maxaan ku raahdaa noo soo dhisay guryaha ka dalka jooga ka dibadda jooga aad iyo aad baan u salaamayaa salaanta la isku salaamata uu qaaya iyo qiimo badan baan ku salaamayaa waxa kale aan ku xijisiinayaa walaalaha iyaga maxaan ku raahdaa dawladda maadaama walaalaha ay inta noo soo dhiseen waxaan doonaynaa inay dawladda iyaduna ay noo biiriso oo maxaan ku raahdaa wasaaraddu wixii ay hesho walaalaha ay nagu taakulayaan ay nagu taran baan doonayaa waxaan leeyahay dadka noo soo dhisay guryaha quruxda badan leh ee qiimaha leh aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin horta marka horeysa Allah ayaa mahad leh waxaan u mahad celinayaa dadka iyaga dalka iyo dibadda jooga ee noogu deeqay guryahan quruxda badan leh degdega ay noogu soo diyaariyaan waayo dumarkii qaar way dhalayaan imika foolshii bay ku dhow yihiin qaarna way madaxwareerkii bay ku jiraan qaar imika sariirtii bay saaranayaan imika ina halka ku foolanaysa oo imika dumarkii qaar ay dul joogan iman lahaa halkan markaasi waxaan ka codsanaynaa in dumarka iyaga umul arooraya dhiig baxaya geestiisa ganacsade Cabdinuur Abdullaahi Jimcaale oo ka warbixiyay maraaxilkii kala duwanaa oo soo maray dhismaha xarunta hooyada iyo dhallaanka deegaanka Jufagaliile ayaa waxa uu ka dhawaajiyay sidani halka kan aan joogno waa deegaanka Jufagaliile oo ka socda dhismaha MCH-ka Jufagaliile waxaan ugu soo booqday oo maanta halkaan isku nimidnay isku duwaha caafimaadka ee gobolka G.Awdal oo isagu dhagax dhigay bilowgii hal MCH-kan ruqsadii fasaxa iyo maarta dhisaankana wax badan hore noo caawiyay in roobixada ka bixiyay MCH-ka wuxuu ka kooban yahay 6 qol wuxuu leeyahay dhammaan waxyaabaha aasaasiyaadka loo baahnaa ee MCH-ka uu ku habboon yahay baahi baa jirtay kulli odayada deegaanka baahida insha Allah in badan ka hadli doona deegaanka inta leeg oo isku ugu yari ay degan yihiin dad dhowr kun oo qof ama ka badan ma lahayn xarun caafimaad waxba yaraatee hooyadu markay umulayso ama ilmo hadduu soo baxo goobta noogu dhow la geeyo waxay booramayeen gaar loola ordo wax kale oo facility halkan ka dhawaan jirin taa darteed ayaa dadkii u dhashay deegaankani waxay isku xilqaameen inay iyagu iskood u tabarucaad u bixiyaan lacagta lagu dhisay MCH-kana oo lacagta lagu dhisay inay ka yeerin $40,000 waxaan isku duwaha iyo wasaaradda caafimaadka iyo dawladda iyo hay'adda cid kastoo ay shaqadan u qosayso waxaan si naxariis leh u codsanaynaa inay naga caawiyaan qalabka dawada iyo shaqaalaha waayo waa wax daruuriyada waa wax loo baahan yahay bulshadu haddii ay caafimaad weydo ma noolaanayso
ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse waxaanu ka hadlay baahida caafimaad ee waqti xaadirkani loo qabay in halkani laga hirgeliyo MCH waxaanu yiri sida tan maalmaha kamid ayay ahayd maalintan dhagax dhigaynay goobtan waan rajeynayay runtii waan ku faraxsanahay maanta inaanu imaado iyadoo gabagabo ku dhow waxaan ognahay wax la bilaabaa inuu maalin u dhamaanayo bulshada intii ka qayb qaadatay ay taalkooga iyo kartidooda iyo fikirkoogaba ka qayb qaadatay iyo maal waxay lahaayeen waan uga mahad celinaynaa annagu haddaanu nahay wakiiladii wasaaradda horumarinta caafimaadka hadday tahay shaqaalaha iyo hadday tahay sidii kale wax loogu raadinayay qalabka iyo daaweyntaba waxaan ballan qaadaynaa wixii annagu xaggayaga ku xidhan inaan ka kofargarayno deegaanka haddii ilaahay yidhaahdo ilaahayna waxaan ka baryaynaa ballanqaadkayaga inuu noo fududeeyo isku soo duubo xarunta hooyada iyo dhallaanka deegaanka Jufagaliiley ayaa dhismaheedu waxa uu marayaa gabagabo